Maxamed Bello Abuubakar casrigani waa ninka ugu xaasaska badan, waxa uuna guursaday 130 gabdhood, carruurtiisuna waxa ay kor u dhaafeen 230 canug. Waxaana la sheegaa maalintii qoyskiisoo dhan inay ku baxdo lacag dhan $900. Maxamed waxa uu ku doodayaa in xaasaskiisa xag Ilaahay qof looga manaystay inuu yahay. Waxa uuna daliil ka dhigtaa ee uu leeyahay ninka ragga 10 dumar haddii hal mar uu wada guursado waxay u badan tahay in awooddiisu ay dhammaato. Balse anigu qof ka duwan ragga oo gaar ayaan ahay, kama caajiso awooddeeduna ma ay nusqaanto. Gabdhaha uu qabo Maxamed markii maxkamadda la hor istaajiyay dadka u doodaya ee banaanbaxyada u sameynayna waxa ay ahaayeen 130 xaas ee uu qabo. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa qisada ninkani iyo gabar guursatay 4 nin oo walaalo ah. Ragga oo keliya ma aha ayay dhahaan inay guursadaan dumarka inta ay doonaan, waa in sidoo kale gabdhuhuna niman badan ay guursadaan sida ay qabaan qowmiyadaha muuqaalkani aad ku arki doonto. Si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad ka hesho muuqaalada caynkani oo kale ah, Laksaar mahadsanid. Maxamed Bello waa nin sheekh oo Muslim Nigerian ah, dumarkuna xanuunada ayuu ka daaweeyaa. Inta badan hablaha uu qabana waa dumarkii isaga uu daaweeyey. Waxa ayna sheegeen mar BBC-du hablaha uu qabo waraysi ay la samaysay inay ku faraxsan yihiin ninkoodii. Waxa ayna ka jawaabeen hadal haynta dadka, taasoo ah in lagu tilmaamay dumar addoommo ah oo la iska haysto. Waxa ayna dhaheen addoommo ma nihin. Ka hor ninkani inta aanay culimmadu ka hadlin, waxaa soo qabtay booliiska waddanka, waayo waxa uu ku xadgudbay xuquuqda aadanaha. 130 dumar in hal mar uu guursado waa dhacdo ka baxsan dhacdooyinka dabiiciga ah ee la yaqaano. Booliiska marka ninkani ay baareen naagihiisuna la waraystay, waxaa soo baxday wax qasab iyo xoog ah in dumarka uusan ku haysan. Culimo badan ayaa ninkani ku tilmaamtay nin aanan Muslim ahayn maadaama xadka sharciga ee loo baneeyay uu ka tillaabsaday, balse isagu waraysigii Al Jazeera uu siiyey ka hor inta aanu dhiman sidani ayuu ahaa. Xaasaskayga 86 ah garabkoodii ayaan taaganahay, alle ayaana iigu manaystay. Haddii aan dhaho iga taga, igama ay tegayaan. Alle waxa uu dadka faray inay guursadaan 2, 3 iyo 4, balse midka uu doono Alle waxa uu siiyaa awood qaas ah. Ninka awooddaasi leh kana soo bixi kara waxba kuma jabna haddii uu guursado. Aniguse ma ihi qof dumar ka raadiya, iyaga ayaa lugahoodii igu imaada. Tanina waa hadiyad xag Alle iga timid. Inkastoo aragtidani ninkani oo keliya qaas ay ku tahay, islaamkuna ay ka hor imaanayso, waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ninkani difaac uu ka dhigtay. Waxaa lagu qasbay in dumarku iska furo si isagana xabsiga looga soo daayo, balse waa uu diiday inuu iska furo. Si kastoo ay ahaato, dumarkiisa banaanbaxyo iyo dood dheer ay sameeyeen kadib, ninkoodii waa loo soo daayay. 4 sano ka hor ayuu ninkani u dhintay cudur ilaa hadda aanan la ogeyn. Ma dumarka badan ayaa sabab u ahaa in ninkani xanuuno aanan la ogeyn uu dhinto? Ilaa hadda lama oga, balse dumar ayay ka dhaadhacsan tahay dhimashada ninkani in xaasaska badan ay ugu wacan tahay. Dhakhaatiirta caafimaadkuna waxa ay maanta sheegaan kulanka jinsiga xad-dhaafka ah maalin gudaheedii in ka badan 10 jeer in qofka xiriir joogto ah uu sameeyaa waxay caafimaadka iyo jirkiisa u keeni kartaa problemyo badan, dumarkuna sidoo kale. Si kastoo ay ahaatee, guurka wax ka badan 4 dumar ah waxa uu jiri jiray qarniyadii hore. Sababaha ugu badnaa ee xilliga dadka ay u samayn jireenna waxaa ugu wacnaa askarnimo darteedii. Dadkii hore inta badan maadaama xoolo dhaqato iyo beeraley ay iska ahaayeen, qofba qofka kale waxa uu ka awood badnaa marka uu haysto wiilal aad u badan. Sidaasi darteeda, niman waxaa jiri jiray 100 gabdhood iska guursada. Sababteeduna waa inay jeclaayeen wiilal aad u badan oo difaaca in hal mar ay u wada dhashtaan. Dhaqankanina islaamka markuu uu yimid waa uu mamnuucay, waxa uuna guurka ku xadiday in qofka ugu badnaan uu guursan karo 4 dumar ah. welibana qofka waxa u wanaagsan ayuu Qur'aanku leeyahay in hal qof uu cadaalad falo. Dhaqamada kale ee dadka aanan muslimka ahayn marka guurka la joogo waxaa jira dhaqamo la yaab leh. Ka hor inta aanan dhaqamada u gudagelin ka hor waxaa muhiim ah inaynu fahamno
guurka noocyadu u kala qaybsamo exomy, endogamy, polygamy iyo polyandry. Waxaase ugu cajiibsan guurka polyandry. Systemka guurkanina waxa uu ku dhisan yahay maamulka matrix. Nidaamka maamulka matrix-na waa falsafad tilmaamaysa in nolosha dumar oo kaliya ay hogaamiyaan. Shaqo walba waxaa qabashadeeda u xilsaaran dumarka, ninka ragga waxaa ka mas'uula gabdhaha. Dhanka guurka marka la imaadana, dumarku waxay xaq u leeyihiin in niman aad u badan ay guursadaan. Gabdhaha ayaaba xaaslayaal badan noqonaya. Nimankani kuu muuqdana waxaa ka dhaxaysa halka dumar oo kaliya, si maseer iyo dagaal la'aan ay ku wada nool yihiin. Inkastoo dadkan ay aad u yar yihiin, ma jirto wax baaritaan dheeri ah oo lagu sameeyey haddii nimankani ay isdagaalayaan. Waxaana guurkani maanta looga dhaqmaa qeybo China iyo India ka mid ah. Gabdhuhu si ay u guursadaan niman aad u badan waxaa shardi oo ku xiran oo kaliya in nimanku ay yihiin kuwa wada dhashtay. Haddii qoysku 5 wiil oo isla dhalatay ay joogaan, waxaa hal mar 5 wiil guursanaysa hal gabar. 5taasi wiilna marka ay gabadhaasi u tagaan canugii dhashtaa si aabba loogu yeelo 5ta wiil ayaa gabadhu waxay u dhiibtaa fallaar sida midka ugu leeshka badan uu ugu guulaysto fursadda aabbanimo. 4ta soo hartayna waxay canuga u noqonayaan iyaga oo hooyadoodii qaba kuwa adeer u ah. Balse waagii hore gabadhu waxay xaq u lahayd in ninka ay doonto in ay guursato. Dhowr nin oo kala duwan inay guursato ayay xaq u lahayd. balse si ciyaalka qoyska aysan uga bixin darteeda sharciyada cusub ee la sameeyay ayaa dumarka ku kalifay in dad wada dhashtay oo kaliya ay guursadaan. sababta ugu wacan ee guurka noocani oo kala dadka ay u sameeyaanna waa in waagii hore qoomiyadaha sida isku guursaday in ay la kulmeen xilliyo dumarka ay aad u yaraayeen, ragguna xilliga aad ay u badnaayeen. maadaama gabdhuhu ay yaraayeen waxay xal u arkeen in gabar walba dhowr nin ay isla guursato, ilaa maantana sida ayay weli u nool yihiin. inkastoo dhaqanka noocani oo kala uu burburayo systemka guurka noocani oo kalahna waxaa laga sameeyay dokumentiyo iyo filimaan kala duwan. guurka hal dumar wax ka badanna dunida galbeedka waa mid maanta mamnuuc ka ah, balse wadamada muslimiinta iyo qaybo badan oo wadamada Afrikaanta waa guur caan ka ah. dadka qaarkood waxa ay dhahaan dumarka sababaha ugu waaweyn ay u dhibsadaan in lala guursado waa dareenka ninka uu dareemi lahaa haddii xaaskiisa nin kale ay la guursato. si kastoo arrintani aysan u banaanayn, haddana gabdhuhu arrintani dareen nafsi oo dhib badan ayay ku qabaan. haddaba ragga qaarkood maxay u jecel yihiin in dumar badan ay guursadaan, maxayse ragga qaarkood hal dumar oo keliya ay u doorbidaan?